الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنه أول أكسنة داوديال ديجستيال ميل كستاب عالم كجوتشان ذلك يغو ذلك نبحنا ذلك يغو شربت عندي ذاقي وانا كنت دورتا ومركل iyo barnaamijka horumar oo aan diiradda ku saarayno waxqabadyadii iyo horumaradii ugu waaweynaa oo ku tallaabsaday maamulka gobolka Banaadir barnaamijkan ayaa waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cali Juxa سيدي طبعاً كيلوليو سنة كان هلبض كون يسيدي طبعاً أيها معمولك قبل كبنادير فري حفيزكي وجوري يلقى بحنا يو دلشة إيجا سكنا أنت maamulka gobolka Banaadir oo ka dhabaynayo ballanqaadkiisii ahaa in hoos loo daadajin doono adeegyada ay dawladda hoose bixiso ayaa waxa xariga mar kale laga jaray xafiiska dhalashada iyo sugnaanta kaasi oo laga hirgeliyay degmada Hodana waana degmadii ugu horeysay ee adeegani laga fuliyay degmada ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto degmadii ugu horeysay adeegani laga fuliyo agaasimaha waaxda daddigista iyo sugnaanta dawladda hoose ee Muqdisho Shamarke Abuukar Cusmaan ayaa warbaahinta uu akhriyay digniin ka soo baxday maamulka gobolka Banaadir oo loo dirayay maamulada xarumaha waxbarasho ee ku yaala magaalada Muqdisho oo ku aadanayd arrimaha dhalashooyinka iyo sugnaanta ayaa waxa lagu wargelinayaa iskuulada iyo jaamacadaha inaysan qaban arday cusub oo aan dawladda hoose ka soo qaadan waraaqda dhalashada iyo sugnaanta adeegani hadda laga hirgeliyay degmada Hodana ayaa waxa uu qayb ka yahay daadajinta adeegyada maamulka gobolka Banaadir ugu daadajinayo degmooyinka waxaana qorshuhu yahay in dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir laga furo xafiisyada laga bixinayo adeegyada dhalashooyinka iyo sugnaanta 19 luulyo sanadkan 2018 ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir socdaal shaqo ku tagay dalka Sweden kulamo natiijo wanaagsan ka soo baxayna la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkaasi duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariso oo ka qayb galayay shirka madasha iskaashiga Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgium ka ayaa gaaray magaalada Stockholm ee caasimadda dalka Sweden kadib casuumaad ay u fidiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariso oo si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Stockholm ayaa uga mahad celiyay jaaliyada soo dhaweynta ay u sameeyeen isagoo oo xuseynta uu joogay Sweden jaalidaha kulamo wada yeesheen iskana wareysteen horumarada laga gaaray rajada wanaagsan ee laga qabo in Soomaaliya mar kale cagaheeda isku taagto gaar ahaan horumarada ka jira caasimadda dalka oo hadda dib u soo kabanaya kulamadan uu la qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariso jaaliyadaha Soomaaliyeed ayaa ka soo baxay natiijo wax ku ool ah oo dan u ah dadka iyo dalka 22 luulyo sanadkan 2018 ayaa maamulka gobolka Banaadir tababar lagu horumarinayo dhaqaalaha u furay qaar ka mid ah agaasimayaasha dawladda hoose ee Xamar tababarkan ayaa waxa furay kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Xuseen Maxamed Nuur ujeedka tababarkani ayaa waxa uu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa tayada shaqo ee dhanka dhaqaalaha kusimaha ayaa kula dardaarmay agaasimayaasha inay ka faa'iideystaan tababarkani maadaama loo baahan yahay
in la horumariyo dhaqaalaha gobolka Banaadir. Tababarka kor loogu qaadayo tayada shaqaalaha ee gobolka Banaadir ayaa muddooyinkanba ku socday si xawli ah si loo helo shaqaale carbisan oo khibrad iyo waayo aragnimo u leh shaqada ay u hayaan gobolka Banaadir. 22 Luulyo sanadkan 2018 ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir warbixin dhammaystiran siiyay jaaliyada Soomaaliyeed ee degan Birmingham ee dalka UK. Duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariso ayaa uga warbixiyay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Birmingham ee dalka UK. Warbixintaasi oo ku saabsaneyd horumarada baaxadda weyn ee laga sameeyay gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa mid u dul istaagay horumarada laga sameeyay arrimaha siyaasadda, amniga, waxbarashada, caafimaadka iyo dhammaan waxyaabaha quseeya arrimaha bulshada, maamulka iyo maaliyadda iyo dhammaan howlaha kala duwan ee ka socda gobolka Banaadir. dhanka jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool Birmingham ayaa si wanaagsan u soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho iyaga oo si weyn ugu riyaaqay uguna mahad celiyay gudoomiyaha horumarada uu ku talaabsaday gobolka muddadii koobneed uu xilka hayay, waxayna ugu dambeyntii ku booriyeen inuu si laba jibaaro howlaha horyaala. ugu dambeeyna gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariso ayaa ugu baaqay jaaliyada Soomaaliyeed ee Birmingham inay garab istaagaan maamulka gobolka Banaadir. 23 Luulyo sanadkan 2018 ayaa kusimaha gobolka Banaadir xariga ka jiray xarunta shaybaar lagu baarayo qalabyada dhismaha. kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Mudane Xuseen Maxamed Nuur ayaa xariga ka jaray shaybaar lagu baarayo tayada qalabka dhismaha guryaha oo laga hirgeliyay magaalada Muqdisho. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa sheegay in kusimaha gudoomiyaha gobolka uu kormeeray dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay shaybaarka isaga oo bogaadiyay injineerada hawshan ka shaqeeyay ee waqtiga badan geliyay. ujeedka ugu weyn ee looga gol leeyahay shaybaarkani ayaa waxa uu yahay sidii loo hubin lahaa qalabka dhismaha iyo agabyada kale ee loo adeegsado dhismaha. maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho ay sii horumarayso siina ballaaranayso dhismooyin badan ka socdaan, sidaa darteed waxaa laga maarmaan noqotay in la sameeyo shaybaarka lagu baarayo tayada qalabyada dhismaha ee gobolka Banaadir. isla 23 Luulyo sanadkan 2018 ayaa xogayaha guud ee gobolka Banaadir kulan dhiirigelin ah u sameeyay gudoomiyaasha ardayda jaamacadaha gobolka Banaadir. xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Mudane Cumar Cabdirisaaq ayaa kulan dhiirigelin ah la qaatay gudoomiyaasha ardayda jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. ujeedada kulankan ayaa waxa uu ahaa dhiirigelinta ardayda waxbaratay iyo ka warqabka mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir. kulankan ayaa waxa soo qaban qaabiyay xafiiska dhalinyarada gobolka Banaadir. intii uu kulankani socday ayaa waxa lagu gorfeeyay horumarada ay sameeyeen ardayda jaamacadaha Muqdisho ku yaala iyo caqabadaha la soo gudboonaada inta ay ku guda jiraan safarkooda waxbarasho. ugu dambeyntii ayaa kulanka la isku afgartay in maamulka gobolka Banaadir iyo ardayda jaamacadaha iska warqabaan si dhowna u wada shaqeeyaan. xogayaha guud ee gobolka Banaadir Mudane Cumar Cabdirisaaq ayaa kula dardaarmay dhalinyarada gudoomiyaasha ardayda jaamacadaha inay yeeshaan urur ay ku midaysan yihiin. 24 Luulyo sanadkan 2018 ayaa waaxda caafimaadka dawladda hoose iyo Banaadir Blood Service ayaa aqalka dawladda hoose ee Xamar ka sameeyay barnaamijka diiwaangelinta nooca dhiigga shaqaalaha dawladda hoose ee Xamar. waaxda caafimaadka dawladda hoose ee Xamar oo kaashanaysa hay'adda adeegga dhiigga ee Banaadir ayaa sameeyay barnaamij lagu diiwaangelinayo shaqaalaha dawladda hoose kaasi oo lagu ogaanayo nooca dhiigga ee shaqaaluhu leeyihiin. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta Marwo Basma Caamir ayaa sheegtay muhiimadda ay leedahay diiwaangelinta nooca dhiigga ee shaqaalaha dawladda hoose.
waxayna ku ammaantay uguna mahad celisay waaxda caafimaadka ee dowladda hoose shaqada adag ay u hayaan bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir. 25 Luulyo sanadkan 2018 ayaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Banaadir xariga ka jartay dhismaha suuqa Kaaraan. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Marwo Basma Caamir Axmed Shakeeti iyo safiirka Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya ayaa si wada jira xariga uga jiray suuqa Nigaad ee degmada Kaaraan. Marwo Basma ayaa si weyn ugu dheeraatay muhiimadda uu suuqani u leeyahay bulshada reer Kaaraan iyo guud ahaan bulshada gobolka ku sugan. suuqan ayaa waxa uu ka mid yahay suuqyada bilicsan oo kaalin baaxad weyn ka qaadanaya bilicda magaalada Muqdisho, waxaana ka mid yahay horumarada dardarta leh ee uu gobolka ku talaabsanayo. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Banaadir Marwo Basma Caamir Shakeeti ayaa kula dardaarantay dadweynaha reer Kaaraan inay ilaashadaan oo daryeelaan suuqani oo u ah reer Kaaraan hanti maguurta ah. 25 Luulyo sanadkan 2018 ayaa maamulka gobolka Banaadir kulan muhiim ah la qaatay hay'adda T+ natiijo wanaagsan ka soo baxay. kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Mudane Xuseen Maxamed Nuur ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar kula dardaarmay madax ka socotay hay'adda T+ ee maamulka gobolka Banaadir ka caawini doonta fulinta howlaha ay dowladda hoose ku baarayso tayada qalabyada dhismaha si dhismooyinka caasimada laga dhisayo ay u noqdaan kuwa tayo leh. sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa ka wada hadlaya dardargelinta mashaariicda lagu horumarinayo dib u dhiska magaalada iyo sidoo kale in hay'adda T+ ay gobolka Banaadir ka caawiso tababarada aqoon kororsiga ah ee la xiriira arrimaha dhismaha. maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in laga maarmaan ay tahay maadaama ay caasimada ku talaabsanayso horumar baaxad weyn in la gaaray xilligii la socon lahaa lana korjoogteen lahaa tayada qalabyada dhismooyinka, midana ay keentay in la furo oo xarigana laga jaro xaruntan shaybaarka ah. ugu dambeyntii kulankan ayaa waxa ka soo baxay natiijo aad u wanaagsan oo ay wada riyaaqeen dhinacyadii wada kulmay. gobolka Banaadir waa naas daloolo gurigii dadkoo idin dumarkiisa weeyaan. gobolka Banaadir waa naas daloolo gurigii dadkoo idin. taasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa maanta horumaradii iyo waxqabadyadii uu ku talaabsaday gobolka Banaadir isbuucii la soo dhaafay. waa Maxamed Cali Juxa oo idinkaga tegaya. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. يا هبيكي تبين هاك الدار او تعال بدن وهايا